الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii labaad ee malaa'igta iyo jinku maxay kala yihiin maantana waxaynu ku soo qaadaynaa sifooyinka malaa'igta haddii alla yiraahdo. waxaynu ku bilaabaynaa abuurta malaa'igta oo ah shay aan wax badan ilaahay inooga sheegin, aan ahayn in uu ilaahay abuuray maalan malaa'igta nebi aadan ka hor, siduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa. xasuuso markuu rabbigaa ku yidhi haddaad muxamed tahay malaa'igta ku yidhi waxaan dhulka u yeeli doonaa cid u hadha, khaliifo u hadha dhulka ayaan u yeeli doonaa. wuxuu kaluu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga sheegay malaa'igta abuurtooda in uu ka abuuray nuur, sida caaisha radia allahu canha laga soo wariyey inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam khuliqat almalaa'ikatu min nuurin وخلق آدم وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. عائشة رضي الله عنها وحيت للرسول كايري صلوات الله وسلامه عليه ملائكة وحلق أبوري نور، جنكنا وحلق أبوري نار، آدمنا وحلق أبوري وحيل أيدين سفيي tii uu rasuulku inoo sheegay aamiin ilaahay qur-aanka inoogu sheegay ee ah in dhoobo laga abuuray nebi aadam calayhi salaam. rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayh inoomuu qeexin ama inoomuu sifaynin nuurkaa laga abuuray malaa'igtu wuxuu yahay. sidaas darteed inooma bannaana inaynu falanqayno nuurkaasu wuxuu ahaa, siduu u ekaa, intuu la ekaa, midnaba inooma bannaana. balse waxay weeye inaynu aamino inuu ilaahay nuur ka abuuray oo ay yihiin khalaa'iq nuuraani ah, macnii nuur ka abuuran oo aan lahayn jidh maadi ah oo la taaban karo. maadaama uu ilaahay ka abuurayna nuur, indhaheennu ma arki karaan, waayo nuur indhaheennu xad bay aragtidoodu leedahay. light waveska uu ilaahay abuuray ee kala nooca ah, ee kala sarreeya, ee kala xooga badan, in ka mid ah ayuunba indhaheennu arki karaan. wixii aragga uu u xadiday ilaahay indhaheennu inay arkaan ka badan iyo wixii ka yar midna ma arki karaan. marka malaa'igtu waxay ka abuuran tahay ma arki karno nuurka ay ka abuuran tahay, waayo xadkii ama awooddii uu ilaahay siiyey indhaheenna xadkii ka baxsanaa weeye nuurkay ka abuuran yihiin. waynu ognahay in xawaasta uu ilaahayna siiyey mid walba uu xad u yeelay. maqalka aynu wax maqlayno xad buu leeyahay, balse sound wavesku ama maxay ahayd dhawaaqu wuxuu kala leeyahay intaasoo maxay ahayd nooc. xadka uu ilaahay dhagaheenna u abuuray ama uu ku xadiday wixii ka sarreeya, dhawaaqii ka sarreeya maqli kari mayno isagoo jira, dhawaaqii ka hooseeyana maqli kari mayno isagoo jira. oo la ogyahay maanta in xayawaanka qaarkood dhawaaqa aynu maqlo kii aada uga sarreeya ayda oo kale ay maqli karto. sidaas darteed malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala nuur buu ka abuuray,
nuurka uu ka abuurayna maaha mid ay indhaheenna awooddu ilaahay siiyey arki karaan, balse ilaahay wuxuu qudraddiisa iyo xikmaddiisa rabbaaniga ah wuxuu shaaca uga qaaday oo tusay rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi jibriil oo ah sidii uu u abuuray ilaahay 2 goor. wuxuu alla inoo sheegay oo uu yidhi qur'aanka kariimka walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin. waxaa dhab ah inuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku arkay jibriil isagoo ah siduu ilaahay u abuuray bilufuqi almubiin, samada qaawan. mar labaadna wuxuu alla inoo sheegay inuu rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi arkay jibriil oo ah sidii uu ilaahay u abuuray markuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala fii suurati najm walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidra. wuxuu kaluu ilaahay subxaanahu wa tacaala awood u siiyey nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi inuu arko jibriil oo ah abuurtii uu ilaahay abuuray oo sideedii ah mar labaad markuu alleh ku yidhi suuratu najmi walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati lmuntaha. dhab ahaane ama dhab ah waxaa dhab ah inuu nebigu salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi arkay jibriil oo ah siduu ilaahay u abuuray kuna arkay sidratu lmuntaha agteeda. waa geed uu ilaahay u bixiyey sidrat almuntaha, waa geedkii ay ku dhammaanayeen wax almuntaha tantahi ilayhi alashyaa. culimada oo sifaynaysa ama tafasiraysa kelmaddaas sidrat almuntaha waxay yidhaahdeen waxa weeye geedka ay ku dhammaato cilmiga cid kasta oo cilmi leh oo khalaa'iqa ka mid ah cilmigoodu halkuu ku dhammaado. yantahi ilayhi cilmu kullu caalimin min alkhalq. waa geedka uu ku dhammaado cilmiga khalaa'iqa wax kasta oo ka mid ahay cilmigay leeyihiin malaa'ig jin iyo insi. wamaa waraa'aha laa yaclamuha ila allah. geedkaa wixii ka dambeeyana ee ka shisheeyana cid aan ilaahay ahayn oo ogi ma jirto ayay culimmada qaar yidhaaheen. qaarkoodna waxay yidhaaheen waxa weeye wixii amar ka imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala halkay ku soo degaan, wixii khalaa'iqa ka kacaya ee kor u kacaya xagga ilaahay u socdo oo dhammina meesha ay ku dhammaadaan ay ku joogsadaan weeye, ee dabeetana malaa'ikata almuqarabiin oo keliya ay ka sii qaado. caaisha radia allaahu canha ayaa 2 aayadood ka waraysatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam micnahooda. wuxuu rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxay 2 aayadood sheegayaan inamaa huwa jibriilun lam arah calaa suuratihi alatii khuliqa calayha gayra haatayn almaratayn. waxay 2 aayadood sheegayaan kamaa fii saxiixi muslim in aanan arag jibriil calayhi salaam isagoo siduu ilaahay u abuuray ah 2 koor oo keliya waxaan ahayn inaanan arag. cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu ardaah waxaa laga soo wariyey imaam muslim ka soo wariyey in uu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ra'aytu jibriila lahu 600 janaaxin aw 600 janaaxin. waxaan arkay buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kamaa fii saxiixi اlbukhaariy jibriil oo siduu ilaahay u abuuray ah oo leh 600 oo baal oo baalka keliya ee 600 ka mid ihi uu buuxinayo sumada oo dhan buuxinayo. kullu janaaxin minha qad sadda alufuq buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kama qaala fii riwaayatin aakhar cabdullaahi bni mascuudin. waaye taasu waa araggii basharka ama bani aadamku uu arkayay malaa'igta. waa nebigeenna oo kaliya calayhi الsalaatu wasalaam ciddii aragtay ee ka mid ah bani aadamka. balse
وحجرة حيوان كقار كمدة ويجونا إلهي أموتيو معايا هاي ملائكة سيدا كسو أرورتي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم سياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا سيدا كسوغا بخاري يا مسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحلق سوري إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام هدي أد مقشان ديك عيايا إلهي فضل جيسا ويديست وايو ديقا سوحو أركي ملائك تكمدا أما ملائك بو أركي هدي أد مقشان دمير عيانا إلهي شيطانك كم مقرنقلا وايو دمير كاسوحو مقلي شيطان أيو أركي بان له هدي أد مقلي صد دمير عيانا شيطان بو أركي waxaad adiguna u dhowday shaydaankaas inuu ku dhow yahay bay u dhowdahay meesha aad joogta sidaas darteed ilaahay waxaan leeyahay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam ka hoos gala ilaahay shaytaanka haddii aad maqashaan maxay ahayd dameerka ciyaya kuwaas waxa weeye wax allaale wixii diig ciya malag buu arkay ama malaa'ig dameer kasta hadduu ciyo wuxuu arkay shaytaan ama shayaatiin sidaasay inoo sheegayaan waxaa jirase taas waa caam macnii waa diig oo dhan dameer oo dhan balse waxaa jira xayawaanada qaar mid ka mid ah ama laba ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana uu u muujiyo markuu rabo inay arkaan malaa'igta waxaa ka mid ahna فرسكي ولها صحابي قال يراهدو أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وأها صحابي جليل أصحابته النبي قولوا كم دها أصحاب كم دها صحابي عبادة بدن الله كعبس بدن قاري حد وهبينكي انت بدن تكدو وهبين نذا كم دها يسقوا تكنيا dameer waxaan leeyahay faras uu lahaana uu agtiisa ku xidhan yahay ilmo uu dhalayna uu agtiisa jiifo oo culimada qaar sida yiraahdeen akhriya suuratul kahf waa culimada qaar weey uu arkay isagoo salaadii ku jira daruur ku soo dhawaanaysa oo laydhar badan ama masaabiix badani ay ka ifayaan dabeetana wuxuu arko daruurtii soo dhawaanaysaba markii dambe faraskiisi uu ka diday daruurtii soo dhawaanaysay dabeetana markuu faraskii diday uu ka baqay inay faraskaas uu ilmihiisa ku joogsado dabeetana uu quraankii joojiyay arkayna daruurtii oo dub noqonaysa oo dub siin socota markay fogaatay ee dameerkii faraskiisina iska degay ayuu haddana quraankiisii iyo salaadiisii bilaabay dabeetana daruurtii way soo noqoto way soo dhawaatay ilaa uu mar labaad faraskii haddana ka diday uu ka baqay inuu ilmihiisii ku joogsado dabeetana quraankii sidaa ku joojiyay daruurtiina dib u noqotay subaxdii markuu waagi bariyay buu rasuulka u tagay calayhi salaatu wasalaam oo arrintii u sheegay rasuulkiina wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam tilka as-sakiina tatanazzalu lilqur'aan waa deganaansho ilaahay uu u soo diray waa deganaansho u soo degay quraanka qiraa'adiisa darteed macnihii oo malaa'ig ah walaw dhalla yaqra'u lanazalat almalaa'ikatu tusallimu alayhi hadduu akhriyi lahaana wadi lahaa inuu akhriyo malaa'igtu way soo degi lahayd waanay salaami lahayd xudayr أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه إلهي سبحانه وتعالى ملائكته وحسفوين كيسا وحسفوين كودا كمدا إنو سيي أود أي مقال كودا كبدلان أو أي مثلا بشر يسوسو كيسيان وحين أقنا هاي القرآن كالله نوغو شاق إن مريم عليها السلام
وإلهي وصدر جبريل إساقوا أج نن بشر سيدو الليل سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وحنو صدرنا روح يجا وإسسو إكسيي بشر دبتنا أي كعبستي أي تري إني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا وحن كاهوس قليا إله الرحمن كا هدي أتهي متقوى له إن أنا دي سوغار سينين وحدي باتا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وحيلي ملك جبريل كيلي وحانهاي ملك إلهي من رسول إلهي كو صادري سيان كوغو هبيو إنن زكية وصالحة وحين أغنها يوكلي إبراهيم عليه السلام إن أو إلهي صادري ملائك بشر أك وإنتو أصوق علي هل هنلايهاي معايا قالين لا وكبقي مركي عني وايين هلبكي سيدو كلا وحين أغنها إن وإلهي سبحانه وتعالى صادري ملك جبريل أصحابتي بدن أو الله فرد الرسول عليه الصلاة والسلام ونيمد إساق أوغ نن درعات قشن تمهي سؤاني محايا هاي قلقلوعين ويسفي عنو فيرين آنو السفر كديفتي سكم موقنن بل سأنا عيدنا قرانين هو الرسول كو وجهي روغا أصاري كان وريستي أشياء بدن أو أي كمديهين إسلامكم محوية إيمانكم محوية إحسانكم محوية ساعده يوحي لمد أين أغنى حديث جبريل وعانا ما أصحابتنا الله يابتين ننكن رسولك وحويدينيا يمركو رسولك جواب أورانيا صدقت رمبات شيكت سيدي أو مركو هرو ويدينيا وعلم دون بل مركو رسولك جوابه وعليه صدقت سيدي أو يحي قف أقون له وحن جوابتن ورسولك بحين صلوات الله وسلامه عليه مركو تجينا ورسولك يلي عمر كيري خاصة مياد قرانيس ننكاسو عدوها عمر يلي إلهي رسولك سأق رسولك يلي عليه الصلاة والسلام وحوها جبريل وإذن كي مد إنو دينتي إذن برو هو جبريل آتاكم ليعلمكم دينكم وحين أغنى إنو إلهي سبحانه وتعالى ننكي سقال إيا سقاشن كقف دلي إرير بني إسرائيل كمدها إيضا بيتندم عاي مركو سقال إيا سقاشن دلي إنو إلهي أطوبت كانوا إنن راهب أوتقي سيدا كسوغن في الصحيحين لغانا سوريي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه إنو توبت كانوا دوني راهب لو تلمامي راهب كيري سقال إيا سقاشن باديس دوني سعينا توبت كانتو معنيه توبت كوما فرنا إساقي قورتك شراب بغولك قدقاي هدنا إساد كيسان وايي الربي إنو توبت كانوا هذا بتنين صالحة وتجي ويرقب كجور ماشن مال كلا وجور تولد هبلة عيادات في عاني شوغان وتجو إلهي العابد يا سيدي يالي لكن مركزي سعودي جدك إلهي نفتك قبطي ملائكتي نارت يا ملائكتي جنة لبادي بكم رمانا إلهان بقلبو دلي قرادي كلام ملائكتي جنة ونتري وتوبت كانوا ينيدي سوحي هيد إن وتوبت كانوا سيدا سوء صفر dabeetana ilaahay malag buu u soo diray labada malag u kala garnaqa oo bani aadam u soo ag yirina qiyaas oo meeshu u dhowiyay labada nooc halku ka yimid iyo halku u socdo hadba meeshu u dhowaado maxay ahayd qolada ay ha qaadato hadduu xaggu toobada ugu socday u dhowaadona qoladii malaa'iktii jannadu ha qaado haddii uu halku ka yimid ee boqolka ku soo dilay u dhowaadana ملائكة النار قاضته بل إلهي سبحانه وتعالى قدري إنه أدوادو حقي توبده ملائكتي جندنا قاضتي يا رحمته عشر كوالك إنو والسلام عليكم ورحمة الله